السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada barnaamijka qaybta saddexaad ee waxaan ka hadlaynaa dadka cusub ee soo galaya wadanka ama dalka Switzerland. haddii aad igu cusub tahay fadlan subscribe ii saar, laagtana ii taawo dhiirgelinaya ii tahay gambaleerkana furo. mahadsanid. dadka cusub ee soo galaya wadanka ama dalka Switzerland waa muhiim qofkaasi inuu iska dhiibo hay-adaha gaarka ama hay-adaha dadka cusub qaabila. hay-adahaas waxay ku horseedayaan hadhow in aad dhanka sharciga iyo dhanka waxbarashada iyo dhanka luqadda. waa muhiim qofka markuu soo galo wadanka ama dalka Switzerland in uu iska dhiibo hay-adaha qaabilsan dadka muhaajiriinta ee soo galaya wadanka Switzerland. haddii aad intaas samayso waxaa laga yaabaa horumarkaagii koowaad wadadaadii koowaad ayaa bilowday. qofka waa muhiim in uu ugu horeen uu barto luqadda ama luqadaha lagu hadlo wadanka ama Jarmalka ama Faransiiska luqadda lagu hadlo Switzerland. luqadaha lagu hadlo Switzerland waxaa kamid ah Faransiis, Dutch, German. qofku waa muhiim inuu luqadda la yiraahdo Dutchka ama Jarmalka inuu barto. intaasi kadib qofka markuu soo maro processkaasi kadib waxyaalo muhiim ah oo kadib ayuu u bilaaban doonaan hadday shaqo ahaan lahayd iyo hadday fahamka iyo bulshada iyo dhaqanka sida shaqooyinka loo dalbada hadday ahaan lahayd. waad ku mahadsan tahay qaybta saddexaad ee aad daawatay. fadlan la soco qaybta afaraad. mahadsanid.